هاي مقعي وحال دار رحمه waxaa dhacday marka aan guursaday anigoo 17 jir ah in aan family yeeshtay laakiin gurigaas muu ahayn gurigaas mid aan ku deganahay waayo dhibaato badan ay jirtay xagga qofka aan isguursanay waxyaalo badan yacni sadeeda ma haysan deganaasho oo anigana waxaan ahaa qof isla weyn oo waqti kastana yacni wax kastana anaa rabo waxa kastana ani unbaa ugu fiican ani unbaa wax ugu ah dhib oo aniga iskay ii haystay iyo dhibkii qofka aan isguursanay labadiyadaba waxaan naqanay laba ku nool sanad kasta dhibaato subax kasta dhibkaas muddo dheer ayuu socday 7 sano ayuu socday ka bacdi waxa dhacday in oo maalin kastaba yacni waxyaalaha waaweyn oo aan soo maray ee ka mid tahay ilooweyn oo yacni oo igu dhib badnaay waxa dhacday markii dambe inaan anigana haddana iga gubtay guri oo dhib kale iigu darsamay gurigaasna oo ahayn guri oo ku jiray yacni oo ku jiray guri oo ku jira ma ahayn caymis ku jira ma ahayn dhibaato badan ayaa iga soo martay dhibkaasoo dhan wax kasta waan soo arkay waxaa gurigaas ii geystay in aniga isla hadlo oo aniga maskaxdeedii wax noqoto waxyaalo waaweyn oo maskaxdeediiba aan aniga ka soo kici waayo oo mar kastaba aan fiiriyo maxay dhibaatadan tahay maxaa isaan maxaa kuu keenay say ku noqon kartaa maxuu gurigaaga u dhismi waaye maxaa dhibkan kuu geeyey markii dhibkii dhan sida dhibka dhan iigu dhacay oo dhibkay wax la sheegi karin iyo qof bini'aadan wax bini'aadan caawinaadiis ay jirin oo qof bini'aadan ay caawin kara iyo wax kale iyo wax bedeli kara aan jirin oo aniga dhan dhulka aalo wax yacni waxaan u qaban karan caruurteydii jirin oo waxaan xasuustaa iga tagday aanan rabin aataa inaan qirto xanuunkayga aanan rabin inaan wax daawo qaato dhibkaasoo dhan qof bini'aadan aan badbaadin karin oona iga caawin karin waxaa ii timid badbaadada ilaah ayaa rabbiga ah ilaah unbaa i caawiyey oo rabbiga ayaa yacni ii soo jeestay waxa waaye waxaan ilaah qaban karinna ma jirin waxaa ii timid caawinaadda xagga ilaah ayaa iiga timid oo waxaan i bedelay oo bedelkan dhibkan iyo waxa dhan oo isbedelka weyn oo ii keenay ilaah nimcadiisa ii timid oo waxa lii maleynaya qof nolosha ka dhacday oo dib dambe u socon oo dunida inay ku socoto laga yaabaa dhibkaasoo dhan waxa iga qaaday culeyskaasoo dhan waxa iga qaaday ilaah ayaa naxariistiisa ii timid markii naxariista ilaah ii timid oo ilaah iga qaaday isbedel weyn baa igu dhacay nafsadeeda dhan dhinac kale aniga mabii mana xasuusto wixii dhacayba waxa dhacay inaan maqlay in rabbiga ciise masiix oo mar kale ii sheegay aan aniga oo lidhahay yacni rabbiga waa jidka iyo runta iyo nolosha markaa rabbiyo waxaan dhahay culaabtan dhan i haysa aniga ma qaadi karo waayo culays bay ku tahay yacni maskaxdeyda ata caadi ma ahayn marka aan ilaaha baryey oo dhibkeyga u sheegtay oo rabbiga u sheegtay dhibkeygii rabbi ciise wuxuu dhahay aniga ma qaadi karo rabbi oday kuu fududa rabbiga wuxuu yidhi yacni ka naso dhibkeyga dhan meeshaan ku nastay wax aqli galay qof kastoo bini'aadan ah wuu yaabay nolosheyda 2 wiig gudahooda waxa ka dhacay oo waxaan noqday qof free ah oo qof madax bannaan oo ka madax bannaan wax kasta i haystay hal mar way iga dhaqmeen waayo naxariista rabbiga ii timid waayo rabbiga wuxuu samayn karin ma laha aniga dhan wax bini'aadan caqli gelinayn ayaan arkay caafimaad xagga maskaxda waa caafimaadee wax daawo aan qaatay ma laha oo nolosha wuxuu i siiyey rabbiga wuxuu i siiyey nolosha weligeed ah oo rabbiga wuxuu i tusay yacni caafimaadkayga habeen maalin kasii dambaysa waa caafimaadee yacni rabbiga gacantiisa ii soo fadiyey oo ruuxa qaduuska ayaa i taabtay asaga waa wax kasta wuu samayn karaa uusan samayn karin malaha wax kasta wuu samayn karaa rabbiga waa rabbi laisku haleeyo waa naxariis badan yahay waa ruuxa qaduuska ayaa i taabtay oo nolosheyda wax alaala isbedelkaasoo dhan waxaan ku helay rabbi ciise masiix waxaan ku helay ilaah xaq ah waxaan ku helay ruuxa qaduuska oo i taabto ay bedel isla weynidii wixii dhan waa ka baxay waa is soo seesiyey oo waxay aan bini'aadan u dulqaadan karin ayaan u dulqaatay waxyaalihii kibirkii wixii dhan waa iga baxay waayo ruuxa qaduuska ay bedelay waayo hadduu ruuxa qaduusku taabto oo ruuxa qaduuska la jiro oo ku caawiyo waa caawiyaha waa ruuxa jacaylka waa caawiyaha waa badbaadiyaha waa ku caawinaya qaladaadkaaga dhan oo ku tusaya rabbiga ciise masiix ayaan ku badbaaday ruuxa qaduuska ayaa i taabtay aabbaha samada joogo
ayaa i badbaadiyey oo badbaado samada ka timid ayaan arkay. saas ayaa noloshayda ay ugu badbaaday. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay nolosha maanta aan ku noolahay. waa nolol aad cajaa'ib u leh, rabbiga wax ka fiican ma jiro. Jos olemme rehellisiä, niin elämässämme on asioita, joiden toivoisimme muuttuvan. Ehkä tottumuksia, tapoja, ihmissuhteita, riippuvuuksia tai jotain muuta. Elämäsi muutos on kirja, joka saattaa olla avuksi. Kirja on sinulle lahja. Kirjan tositarinat kertovat, miten löydät voiman muuttua. Tilaa kirja ilmaiseksi. Ohjeet löydät osoitteesta koemuutos.fi.